keliya salka ku haysay laakiin wax weheliyaa aana jirin. marka koowaad waxaan uga tacsiyeynayaa shacabka reer puntland ama shacabka soomaaliyeed oo dhan. waxaan si gaara ugu tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay dhacdadaas in iyaga iyo eheladoodii iyaga waxaan leeyahay ilaa jannatu firdaws ka waraabiyo. gacanka xaqdaran baa dishay, duulaan baa loogu yimi. ilaahay ha u naxariisto. eheladii ay ka dhinteenna waxaan leeyahay samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo. wax khayr badan ama ciwad khayr qabana allah ugu bedelo. naftaydana waan uga tacsiyeynayaa oo waxaan uga tacsiyeynayaa wixii iyo qaabkii hay-ad dawliya oo hay-addii dalka ugu sarraysay oo baarlamaanka oo aan anigu oday u ahaa oo wixii lagula kacay dalka sharciyaddiisa ilaalinaysay in sharciyaddii la laabo, sistamkii dowladnimada laga baxo, mid u eg qabiil u eg oo qaab daranna maxay ahayd inay lagu dhaqmo. taasna waxa weeye aniga kursigu muhiima lama ahayn, laakiin waxaa muhiimay ahayd sida wax u dhacayaan ama in dalku nidaam iyo system uu lahaa kaa in laysu maro. waxaana muuqata in la laalay oo u laalmay. taas macnaheedu waxay tahay wax puntland la yidhahdaa marka ma jirto ayay qoladaasi si cad u tiri, maadaama ay sharciyadeedii laaleen. waxay si cad u yidhaahdeen puntland wax la yidhaahdo ma jirto, wax lagu heshiiyeyna ma jiraan. hadal afka laga yidhahda keliya maa, laakiin ficil bay u yidhaahdeen. taasna waxa weeye dadka reer puntland iyo naftayda iyo eheladii wax ka dhinteen baan uga tacsiinaya. intaa kadib dadka reer puntland waxaan leeyahay, waan la hadlaya, puntland badbaaday u baahan tahay. jar bay ka lubataa. mabaadi'dii lagu dhisay iyo waxyaabihii loo dhisay iyo ahdaaftii laga lahaana way ka weecatay. wada lahaanshihii iyo wadaaggii wax wadaaggii lagu wada dhistana way ka weecatay. waxay maraysaa in koox yari ay u afduuban tahay. waxaan leeyahay badbaaday u baahan tahay. haddaan la badbaadinna meel fog baa laga dooni doonaa sida ay hadda wax u wadaan kooxdaasi. waayo waa koox aan ehelna u lahayn, awooddeedana aan lahayn. sidaa laajrigeed puntland, reer puntland oo badbaaday u baahan tahay. waxaana leeyahay wixii tala kale heli kara oo reer puntlandihi ha isu yimaadeen, hana tashadeen, puntlandna hala badbaadiyo. qodobkaan intaasaan kaga gudbaya. qodobka saddexaad aan ka hadli doono waxa weeye waxaan la hadlayaa shacabweynaha degan gobollada sanaag iyo highland iyo bari oo ay sida gaarkaa u taabanaysay arrintani ama sida gaarkaa xanuunkani u taabanayay. waxaan leeyahay iyaga dhaqan looma xeerin oo nidaam iyo system looma xeerin oo tolnimo iyo wixii laysu sheegi jiray looma xeerin oo bini aadamnimo looma xeerin oo meel u badqabtaan ma jirto. waxaan leeyahay oo aan soo jeedinayaa dal iyo dabadba wixii joogaa tala inay isugu yimaadaan deg deg ah, kana tashadaan qaabkii ay puntland loo dhiirigarayn lahaayeen, maadaama ay ka weecatay mabaadi'dii iyo ahdaaftii iyo wadalaanshihii lagu dhisay. tala deg dega ka yeesha ayaan leeyahay. baaqaasaan u soo jeedinayaa, waana rajaynayaa inay aqbalaan oo qaataan. waxaana leeyahay si deg dega in la isugu yimaado. anigana insha allahu waxaan rajaynayaa dadku way eegayaan, war hadal bayna iga sugayaan iyo wax iga soo baxa. kana ugu horeeya waxaan ugu baaqayaa shir wada tashi ah oo la isugu yimaado. waxaan kaloo insha allahu samayn doonaa, aniguna waxaan mari doonaa mandaqadda, gebi ahaan waan mari doonaa mandaqadda, waayo dadkaa codsaday especially magaalooyinka waaweyn. insha allahu waan tegi doonaa, waana la kulmi doonaa. talo wixii ay qabaanna waan ururin doonaa. markuu soo dhammaado safarkaas iyo socodkaasina insha allahu wixii ka soo baxa waan idinla wadaagi doonaa. laakiin waxaad ogaataan oo ku tashataan
oo u weel qaadaan oo isu sheegtaan inuu noqdo in la isu yimaado lana tashado. iyagana intaas ayaan leeyahay. waxaana leeyahay istajiya, niyaddiinu ha deganaato. wax waa iska dhacaan, waana dhici doonaan, waana dhici jireen, laakiin asal waxaa u noqda hadba qaabka loola dhiilgarayo iyo sida looga tashado. marka waxaan leeyahay taladiyay idinka xumaanin, iyagana intaasaan kaga gudbaya. waxaan rabaa dadka degan laftigoodu aan isku danta nahay ee degan Sool, gobolka Sool iyo bari oo aan hore uga dhawaajiyey, isku dan baanu nahay. waa soo dhaweynayaa taladooda iyo wax wada qabsigooda iyo maxay ahaydeenay taageeradooda waan soo dhaweynayaa. waxaan kaloo soo dhaweynayaa cid allaale ciddii ka xumaatay dhibaatadii foosha xumayd ee waxashnimada ahayd ee ka dhacday xarunta baarlamaanka ee Garoowe. cid allaale ciddii ka xumaatay waan soo dhaweynayaa, waana uga mahad celinayaa. waxaana leeyahay waa mahadsantihiin wixii wax garanayay oo ka damqaday oo u arkayay waxaasi wax Puntland iyo ciddii lagu samaynayay midna aan u qurux badnayn. taana intaas baan kaga gudbayaa. waxaan ku gabagabeynayaa saxaafadeedkayga qolada saxaafadda baan rabaa inaan kelmad idhaahdo. kelmadaan onayaa waxaa weeye maalmahan waxaan maqlay iyagoo leh guddoomiyihii hore. anu waxaan isu haystaa guddoomiyihii xaqa ahaa, isuma haystee waan ahay. waayo sifo sharci aan ku imi, sifo sharciya uun baan guddoonka ku waayi karaa.